war-saxaafadeed muqdisho ujeedo shirweyne taageerida ciidanka badbaado koonfur galbeed qaybtooda degmada Qansax Dheere maanta oo ay taariikhdu tahay 15 Maarso 2026 waxaa magaalada muqdisho ku qabsoomay kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen dhammaan qeybaha bulshada sida odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta aqoon-yahanka ururada bulshada rayidka ah haweenka iyo dhalinyarada ee ka soo jeeda degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay shirkan oo lagu taageerayay ciidamada badbaado koonfur galbeed qaybtooda degmada Qansax Dheere iyo isbedelka maamul ee ka dhacay degmada Qansax Dheere waxaa laga soo saaray qodobada tan kow shirweynaha wuxuu si buuxda u taageerayaa una garab istaagayaa isbedelka maamul ee ka dhacay degmada Qansax Dheere wuxuuna u mahad celinayaa cid walba oo gacan ka geysatay labo waxaan walaac weyn ka muujinaynaa xaaladda bani'aadanimo iyo abaaraha ba'an ee ka jira deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada Qansax Dheere iyo nawaaxigeeda waxaana dhammaan hay'adaha samafalka ee kuwa caalamiga iyo kuwa maxalliga ahba iyo hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ee Sodma iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo cid kasta oo muxsin ah ka codsanaynaa in gurmad degdeg ah lala gaaro dadka tabaaraysan ee ku dhaqan degmada Qansax Dheere iyo nawaaxigeeda saddex shirweynaha wuxuu cadeynayaa in laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay tahay 15 Maarso 2026 degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay aysan maamul ahaan hoos tagayna oona ka tirsaneen macnaha maamul ahaan ka tirsaneen maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya una si toos ah u hoos tagaysa dawladda federaalka Soomaaliyeed dadka sida uu qabo dastuurka dadka degmada Qansax Dheerena ay taageerayaan soo dhaweynayaan wax ka bedelka dastuurka ayna si toos ah u hoos tagayaan dawladda federaalka oo aan wax tala ah iyo maamul ah aysan la wadaagaynin ama ka rabin maamulka koonfur galbeed ilaa iyo doorasho xor iyo xalaal ah loogu qabanayo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waxaan u mahad celinaynaa shirweynaha wuxuu u mahad celinayaa ciidamada ATMIS kaalinta mugla oo ay ka geysteen sugidda amniga degmada Qansax Dheere waxaana u rajaynaynaa inay dhaxdhaxaad ka ahaadaan si dhowna ula shaqeeyaan maamulka dhawaan loo dhisi doono ee degmada Qansax Dheere kaasoo ku imaan doono rabitaanka shacabka ee degmada ku nool dhamaad waa mahadsantihiin